wuxuu yiri waxaan rabaa in la iga jaalbixiyo su'aashatan salaatu tasbiix hadaba salaada goorma la dukadaa ayuu leeyahay imisa ragcadood ayaana la dukadaa salaadaasi sheekh iga jaahil bixi ajri xasanada la soo koobi karin ee baxa ku siiye miisaanka qaran Allah ku saar insha Allah bismillah alhamdulillah waxaan malaynayaa waa afar qodob baan mas'alada ku soo koobi lahaa imisa ragcadood weeye waa afar ragcadood salaatu tasbiix waa afar ragcadood goorma la tukadaa wixii waqtiga duhurka loo gaaro riwaayadka Abu Daawud iyo wariyaan fa idha zalat ash-shamsu ilayhi qaabkee baa loo tukadaa waa afar ragcadood mid way la wadaagaan salaadii inteedii kale oo suuradii faatixada la aqrinayay waxay la wadaagaan suurad ka dambaysa in la akhriyo ragcad walba faatixada iyo suurad ka dambaysa akhri tasbiix waxa loogu bixiyay ragcad walba 75 jeer ayaa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar dhihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar ba 75 jeer baa la oranayaa lix mawqic ama goobood waa 10 hal midna waa 15 taagnida faatixada iyo suurada marka dhamayso 15 jeer baad ku celin marka rukuucdo 10 baad dhihi marka soo toostay taagnida 10 baad dhihi sujuuda koobaad 10 baad dhihi fadhiga labada sujuud u dhaxeeyana 10 baad dhihi sujuuda labaadna 10 baad dhihi marka sujuud labaad ka soo kacday intaadan istaaginna waa yar hakan oo 10 jeer baad dhihi lixda rukuucda iyo taagnida ka dambaysa iyo labada sujuudood iyo fadhiga u dhaxeeya fadhi yar oo ka wada dambeeya lixda min 10 jeer subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar waa taagnida horana suurad iyo faatixada iyo suurada marka dhamaysa 15 jeer waa tawa 75 hadii afar ragcadood lagu dhuftaay waa 300 salaada afarteeda ragcadood 300 jeer baa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar la oranaya ragcad walbana saasa loo oranaya inuu soo sheegnay tana waa qaabka loo tukanayo tan ugu qodobka ugu dambeeya liiban waxa weeye fadliga ay leedahay asalku waa nabiga la hadlayay sallallahu alayhi wasallam adeerkiisa Abbas radiyallahu anhu warda baa wuxuu yiri ma ku sheegaa wax faa'iido badan oo khayr badan oo dambigaaga mid ka yar iyo mid ka weyn kii hore iyo ka dambe kii cusub iyo kii qadiim ah ee horeba dunuubtaas oo dhan lagu dhaafayo markaasoo nabigu salaadan baray sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri hadaad awoodo maalintii martuko haday kugu adkaato usbuuci martuko haday kugu adkaato bishii martuko haday kugu adkaato sanadkii martuko hadii aad kari weydana cimrigaaga intaad nooshahay mar tuko sida loo tukanayo fadligaadiyo intaasaan ku soo koobay asalkuna waa xadiidka nabiga alayhi salaam adeerkii Abbas uu la hadlayay lagana warinay Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa ardaahu manaan jazakallah